Assalaamu calaykum asxaabay kusoo dhawaada kanaalkayga Short Films. Walaal intaana bilaabay muuqaalka fadlan subscribe noo saar. Maanta waxaan sharaxaynaa filim American horror oo cabsi ah. Jeffrey waxa uu lahaa bakhaarkeeda oo kacay taasoo ku reebtay niyad-jab weyn sababtoo ah xiisadii dhaqaale ee jirtay 2008 waxa uu dilay nin ay wada shaqeynayeen xaaskiisa oo xanuunsaneyd kadib waxa uu kacaystay labadiisa caruur iyo Victor oo la kulan jiray Victoria oo 3 jir ahayd iyo Lily oo 5 jir ahayd isagoo oo kacaystay baabuurkiisii xawli ayuu ku socday waxa ay cabsi gelisay labadiisa caruur kadibna baabuurkii uu siibtay isagoo oo ka dhacay ku yaala bartamaha keenta cufan ee baraf ka dhacayo waxa uu ka badbaaday shirki kadib waxa uu labadiisa caruur u kacaystay guri ku yaala keenta bartamaha isagoo oo dareemaya jahwareer iyo murugo waxa uu go'aansaday in uu dilo labadiisa gabdhood Victoria iyo Lily markii uu qoriga u taagay Victoria oo diyaar u ahaa inuu toogto si ma filaan ah madow ayaa u yimid gudaha isla markiiba qaaday meedka Jeffrey oo dhintay hadda Victoria iyo Lily kaliya ayaa guriga ku haray ilaa ay ugu dambeyntii arkeen qof dumar ah oo qolka ku jira iyaga oo arkaya sawirka madow oo dul jooga waxay ahayd ruuxan la yiraahdo Mama 5 sano kadib Lucas Disney oo ahaa mataana dhashay Jeffrey ayaa shaqaaleysiiyay koox samatabbixin ah si ay u raadiyaan walaalkiisa maqan ugu dambeyntii kooxdii waxay heleen Victoria iyo Lily oo xaalad aad u liidata ku jira iyaga oo noqday durjoog intii lagu jiray muddada daaweynta Victoria iyo Lily waxa ay ku jireen qol gaar ah oo ay ku buuxeen alaabta carruurta ku ciyaarto iyo sidoo kale xarfaha alifbaatada si loogu barto iyaga iyo inay la qabsadeen deegaankooda cusub ee nolosha markii ugu horeysay Lucas ayaa la kulmay Victoria way baqday iyada oo weerar ku qaaday Lucas laakiin waxa uu muraayadiisii siiyay Victoria dabadeed markii ay muraayadii xiraatay Victoria Lucas ayay mooday aabaheed sababtoo ah Lucas iyo Jeffrey waa mataano waxa uu qaadanaysaa in Lucas uu yahay aabaheed Lucas iyo saaxiibtiisa Annabelle waxay isku dayeen inay kaxaystaan carruurta oo ay la noolaadaan laakiin isla waqtigaas Jean oo ahaa idada carruurta waxay isku dayaysaa inay daryeesho Dr. Ryan waxa uu ogolaaday in Lucas iyo Annabelle ay daryeelaan carruurta waxay sidoo kale degan yihiin guri uu leeyahay macadka oo Dr. Ryan ka shaqeeyo sida waqtigu uu socday Victoria waxay si dhaqso ah ula qabsatay nolosheeda cusub si ka duwan Lily oo wali sii haysata dabeecadihii duurjoogta ah inkastoo labada hablood ay u guureen guri cusub iyo nolol cusub hooyadii ruuxaanta ahayd wali way raacdaa maalin kasta habeenada kamid ah markii Annabelle iyo Lucas ay qolkooda ku jireen silma filaan ah Annabelle waxa ay aragtay hadh madow taagan albaabka hortiisa Annabelle silma filaan ah ayaa u naxday waxayna u sheegtay Lucas inuu qolka oo dhan soo eego marka Lucas uu kacay jaranjarada dabaqa labaad waxa uu ku arkay wax ka dulmado darbiga si tartiib ah u weynaanaya darbigii waxa ka soo baxay balanbaalis oo isu bedeshay hooyadii ruuxaanta ahayd kadibna waxay weerartay Lucas uu dhacay isagoo oo dhaawac soo gaaray ilaa uu ka suuxay Annabelle ayaa Lucas ula carartay isbitaalka hadda waa saddexdoodii guriga Annabelle waxa ay bilowday in ay dareento waxyaabo cabsi ah riyada waxa ay ku aragtay sheekada dhabta ee ku saabsan hooyada ruuxaanta hooyadan waxaa loo diray isbitaalka dhimirka xanuunka dhimirka ee dartiis waxa ay umushay ilmo kadibna waxaa la damcay in laga qaato intii laga qaadan ayay la carartay keenta iyadoo ugu dambeyntii quusatay waxa ay ka buuday webi dheer koorinta aysan ka boodin ilmihii waxaa kala hadhay geed ku yaala dusha sare ee webiga ilmihii oo ku dhagan laangeeda engegan markaas ka buuday ilaa ay dhimatay kadib waxa ay isku bedeshay ruuxan waxay heshay Victoria iyo Lily bedelka ilmihii ka lumay Victoria Lily isku soo dhawaanayaan maalmaha ka dambaysa tani waxay ka dhigaysaa hooyada xanaaq iyo xinaase sidoo kale waxay isku dayaysaa in ay ka takhalusto Annabelle dhan kale Lucas uu ka soo toosay comedy waxa uu arkay Jeffrey oo iftiimay gidaarka isagoo ka codsay in uu badbaadiyo inantiisa Dr. Ryan waxa uu isku dayay in uu ogaado qofka ay tahay hooyada xitaa waxa uu aaday qolkii keenta ku yaalay isagoo oo rajeynaya in uu tilmaan helo waxa weerar ku qaaday hooyadii ruuxaantii uuna dhintay waxa ay dib ugu soo noqotay gurigii iyada oo weerar ku qaaday oo xoog ku kaxaysatay labadii caruur ahaa ugu dambeyntii hooyadii iyo labadii hablood waxa ay ku noqdeen qolkii keenta ku yaalay Annabelle waxay xaqiiqsatay kadibna waxa ay la xiriirtay Lucas waxay horeba uga taqaanay dhammaan sheekooyinka taariikh nololeedka
ku saabsan hooyada ruuxaanta iyadoo heshay cadeymo iyo feelal uu lahaa Dr. Ryan iyada oo ka heshay hooyadii ruuxaanta ee sawirkeedii. Annabelle waxay ka baxday gurigii iyadoo kusii jeeda keynta. Ugu dambeyntii waxay halkaas kula kulantay Lucas. Kadibna markii ay raadiyeen Annabelle iyo Lucas waxa ay heleen Victoria iyo Lily. hooyadii waxa ay geysay carruurtii buur. Waxay isku dayday inay labadii gabdhood ku celiso gacmaheeda. hooyadii waxa ay soo weerartay waxa ayna keentay labadii gabdhood cirifka dhagaxa. dhanka kale Annabelle waxay isku dayday inay ka ilaaliso hooyadii ruuxaanta ahayd. waxa ay ugu dambeyntii ku guuleysatay inay qabato xarigga funaanadda Lily. Lily waxaa qaadatay hooyadii ruuxaantii halka Victoria ay badbaaday ay ku jirto gacmo Annabelle. hooyadii ruuxaanta ahayd waxay isku duubtay Lily kadibna waxay iska tuurtay webiga gunta hoose.